أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وسلامتهن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت إداوانيساي إذ الكيمبا وأنا دكتور قاسم حرس فارع halkan idinkaga daadihin doona mawduuc yara xasaasi oo ku saabsan in si diinta islaamka loo marin habaabiyo dad loo siiyo shahaadooyinka PhD iyo wax la mid oo kuwa diinta islaamka ku haynaya dhan kale u weecinaya oo dhanka saxda aan u weecinaynin aan ku wadaynin. dadka iyaga ayaan marka tusaale ka soo qaadanaya hal nin oo ka mid oo ninkaasi oo shalayto baraha bulshada soo dhigay in uu qaatay shahaada oo PhD doctora uu qaatay oo muxuu ku qaatay baa la isweydiinayaa. marka waxa uu ku qaatay sida meelaha oo dhanba ku cad waxa ay tahay in uu ku qaatay waxa la dhaho cilmul xadiis qaybtiisa hoose ee ka sii midka al-xadiithul waciid, xadiista waciidka ay ka hadlaysaa. marka xadiista waciidka ka hadlaysa ayaan taabanayaa. sidoo kale waxaan taabanayaa shakhsiga isaga laftigiisa. waxa aan markaa halkaa ka soo saarayaa xaggee bay u jiraan diinta islaamka. diinta islaamku waa halkee, axaadiista waciidkuna waa halkee, ninkanina waa halkee. intaa ayaan isla soo barbardhigayaa. laakiin waxa aan rajaynayaa in allaha awoodda lihi uu mar walba maskaxdayda ku dejiyo aayadda qur'aanka ee aan ku furfurtay. aayaddaas oo in allaha awoodda lihi uu leeyahay walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin calaa anlaa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu littaqwa. yaysan idinku qaadin in aad samaysaan cadaalad darro, caro aad qof u qabtaan awgood. carada aad qabtaan yaysan cadaalad darrada idinka qaadin, laakiin cadaalad sameeya. sidaa ayaa u dhow in aad dhowrsataan ood allah ka dhowrsataan. halkaa marka aniga oo kasii wadaya waxa aan ka afeefanayaa waxyaalaha ay dad badani ismoodsiin karaan. waayo dadkeenna Soomaaliyeed annaga oo maraaxil kala duwan soo marayna ayaa marxaladda aan maanta ku jirnaa waxa ay tahay marxalad ay marba shakhsiyaad inta noo soo baxaan maskaxda naga qabsanayaan. oo laakiin maskaxda waxa ay nooga qabsanayaan ayaa dariiqyo kala duwan dariiqa marka ugu sahlan oo dadka lagu qabsado oo weligeedba dunida lagu adoonsan jiray oo diinuhuna ay u soo baxeen si ay waxa u baabi'iyaan ayaa waxay tahay in magaca diin dad lagu waabsado oo lagu haruursado oo lagu sameeyo waciid. markaas magaca diinta ayaa dad badani marka oo Soomaali ka mid waxa ay ku qabsadeen dadka iyaga aniga waxa laga yaabaa in aad in badan oo idinka ka mid aad ama igu dhibsanaysaan ama aad isleedihiin ninkani waxa uu mar walba ka hadlaa dad buu haystaa oo uu saa ugu dhegan yahay u cunayaa. laakiin waxaad isweydiisaan kuwa sidaa dhahayow anoo aayaddii aan ku furfurtay idinka oo ila arkaya aan noqonno cadaalad. walaalayaalow aniga weligeed ma la iga maqlay aniga oo xag diin ku duraya wax aan ka ahayn labada nin oo far soo dheeraatay noqday markaas kuwo fidno weyn sababi kara haddii aan laga horteginin. oo labada nin aan mar walba sheego aanan kala xishoonin. labadana aan intiina badan idinka aqoon ogahay lana macnaha la soo macaashirayn aan dhihi karo, la soo dhaqmayn aan dhihi karo in muddo xoogaa siiba midka hadda aan sheegayo maahana midka kaleeto. waxa ay tahay labadaas nin keliya ayaan weligay wax ka sheegay oo xag diina. qof kale oo bini'aadanana weligay wax kama sheeginin. intaa marka ay tahay labadaas nin kasta oo ka mid ugu yaraan 200 oo qof oo muslimiin oo mu'miniin oo mutacallimiin ayuu jaa'ifeeyey, dhibaateeyey, gaaleeyey, xumeeyey oo liiskooda la hayaa. marka ay sidaas yihiin ayaga 200 oo ay dhibaateeyeen oo ay wax ka sheegeen oo aafeeyeen lama sheegayo, xumaan ma ahan. laakiin anigu in aan labadooda kaliya tusaale ahaan u soo qaato waa xumaan. haddaba taasi haddii aan la barbar dhigno aayaddii aan akhriyay bal idinkuna ila fahmo oo ila xukmiya arrinka isaga
labadaa ninka aan marka maanta haysto oo waxa weeyaan waa ninka la dhaho sheekh shible waxa uu shalayto iclaamiyey in uu shahaadada PhD qaatay laakiin PhD-da waxay tahay axaadiista waciidka ah marka baan laftigooda horta eegaynaa meesha ay joogaan islaamka ka joogaan laakiin intaa ka hor weli afeeftaydii waxaa ka mid ah in walaalayaalow dadka aan ugu talagalay in ay dhegaystaan horta oo ila soconaya waa dadka culamada ah oo cuqalada ah marka barnaamijii lilcuqalaa walilculamaa laa liljuhalaa marka intaas taas in la ogaado waa cafwan inaan sidaas dhaho dadka axmaqa ah ama dadka maskaxda laga haysto ama dadka la mulkiyey madaxooda dadka iyaga ah waxaan ka cudur daaranayaa haddii ay u adkaysan karaan inay dhegaystaanna ha iska dhegaysteen oo markaas dib waa intaasoo ka soo xusuustaane haddii aynan u adkaysan karinna qasab kuma ahan in ay dhegaystaan barnaamijkan laakiin inta culummada leh ee ila fahmaysaa ayaan u soo bandhigayaa aan ku dhacan godogale xadiidkan waxa weeyaan waa axaadiista waciidka ah la dhahaa axaadiista waciidka ah kelmadda waciid qur'aanka way ku soo aroortay ilaa 45 jeer ayuu ilaah qur'aanka ku sheegay waciid laakiin waciidka mar kasta oo ilaah uu sheego waxa uu ku sheegayay waciidka allah marka yaa waa kelmadda waciid markaas waxa xaq u leh waa allah laakiin qof kale inuu waciid sameeyo kama muuqato meesha qur'aanka ilaahay waa qodobka kelmadda waciid marka aan fasirayana af Soomaali ahaan waxa ay noqon kartaa goodin u bootayn waabsi handadaad hanjabid u dhaarasho qabjabin qofkan maskax ka qabsasho waxyaalahaas oo dhan oo ah waabsiga oo aan nooc walba soo geli karo ayaa la dhahaa handadaadaas oo goodigaa la dhahaa goodigaas marka kelmadda ugu caansan ee macnaheedu annaga reer Soomaali haddaan nahay caan ku ah waxa weeye waa bootayna qofkan marka kelmadda haddii aan dhahno waa goodi iyo waa handadaad yaa samayn karaa waxaa samayn kara allah laakiin haddii aan bootayn dhahno waxaa samayn karaa wax kasta oo allah ka sokeeya ayaa waxa ay sheegaan ilaan waa wax kama jiraan booteeya marka uu ilaah waciid qur'aankiisa ku sheegayana waxa uu ku sheegaa maalinta qiyaamaha waxa dhacaya فحق وعيد أيو إلهي ليهي مركز حق وعيدك ومالنت قيامة يوم الوعيد أيو إلهي ليهي ويوم القيامة يوم الميعاد مركز وعدي أو وناك سمين وناك فريد وناك معنيه شيقيد ووعدي مركز توا وحا وناك إن أمانت أبال مرنت ballanta wanaagsana laakiin waciidku waa waxa xumaanta ah waabsiga ah dilka ah ciqaabta ah dhibaatada ah intaas weeyaan waciidku marka waciidka noocaas ah ayaa waxa uu yahay mid allah kaliya u sugnaaday ee cid kale aan u sugnaanin xataa gabayadii jaahiliyada marka ay gabayga carabtu qaadis jaahiliyada waxa ay garan kareen in waciidku uu allah u sugnaaday oo kaliya oo waxyaalaha waciidka ay ku sheegaan waxa weeyaan waxa allah uu leeyahay tusaale gabay kamid ah ayaa waxa uu yahay akala dahru jacdatan mustahiqan aba xabsin lishatmin aw waciidin an aqalla ghina'in anka ib'adan ya bariq waciidu lijabbari saqri min shiddati ar-ru'bi marka gabaygaasi waxa uu tusinayaa qofkan la sheegayo wax waabsanaya wax dilaya rucbiga iyo argagaxa sameynaya in uu yahay qof jabbaar ah sida ilaahay oo kale jabbaar iska dhigay sidaas darteed xadiid waciid ah horta waa tafsiirkiisu waa halkaas waa kow midda kaleeto marar badan baa idin sheegay xadiidku mar walbaba waa wax dhaniyatu thubuut ah oo waxa ila fahmaya qof kasta oo shariica islaamiya fiqh islaami soo bartay waa wax ku salaysan oo lagu dhiso malo lagu dhiso laakiin qur'aanka ayaa waxa uu yahay qadciyatu thubuut wax lagu dhiso hubnaan iyo xaqiiqo biyo kama dhibcaan ah marka ay sidaas tahay waxa weeyaan xadiid macnihiisu oo xadiidka waciidka ah
uu ku badan yahay axaadiista laakiin badanaa muxuu ka hadlaa ma sida qur'aanku waciid u sheegay buu u sheegaa mase si kale u sheegaa waxa uu badanaa ay u sheegaan axaadiistaasi si kale oo ilaa qur'aankiisa waciid oo asaga u gaara buu ku sheegaa oo haddana maalinta qiyaamaha dhacaya laakiin iyagoo xadiis badan waxay sheegaan wax adduunka ku dhacaya oo haddana aan caqligal ahayn oo haddana handadaad iyo qabjabin iyo waabsi iyo bootayn ku saabsan oo tusaale maxaa ka mid ah haddii qof uu hees dhegaysto waxaa laga soo tuurayaa buurta ugu dheer baa la dhacdhacaysa la jajabaysaa haddii uu nin surwaalkiisa ama cawistiis yaro dheereeyo oo anqowga gaarto ilaah ma fiirinayo ma arki xule iga fogeeya naarta ku tuura waxaa ka mid ah waxa ay dhahaan hadday gabar iscatariso waa iyaduna waa sidaas waasaaniyad waa xagga kale waxa oo dhan oo lama koobi karo waxa weeyaan waxyaalo ku sablaysan dil dhac boob qarxin mushkiladayn waana waxa abuuraa waxa maanta socda ee ku dhisan rucbiga iyo argagaxa ku dhisan waxa iyaga ah waxa ka mid ah marka oo xadiistaas badankooda ay dad aan muslimiin ahayn u dejiyeen si ay muslimiinta isugu baabi'iyaan oo isugu laayaan oo tusaale waxa ka mid ah marka axaadiista uu ninkan gaar ahaan Sheekh Shible ku takhasusay oo uu weligeena caanka ku ahaa oo hadda aan fahmayo war ninka intaas oo been ah muxuu ugu bareerayaa war ninka intaas oo gardarays ah muxuu ugu bareerayaa ilaa ninku waaba nin aan shaqo lahaynba kala lahayn ee shaqadiisu ay tahay axaadiistan handadaada ah kaliya in uu barto oo bootadaas uu ku socdo marka axaadiistaas iyaga ah waxay u badan yihiin kanu xaggu eegay waa gaal dil kanu waa murtad dil kanu waa munaafiq dil kanu waa xagga dil taasoo macnaheedana loo dejiyey dadka muslimiinta cadowgooda ay u dejiyeen si ay muslimiinta dhexdooda mid isaga soo horjeediyaan laba wada dhalatay isu dilaan laba isla darisay isu dilaan gamta la isaga suro sidaas baa xadiis noocaas loo soo dejiyey oo ah xadiista oo hadda ninkani PhD ku sii qaadanayo maxay tahay haddaba ujeedada aan uga hortagayaa ma ahan colaad aan shakhsiyan asaga u qabo ma ahan masayr aan asaga u qabo ma ahan xumaan aan iskaleto asaga u qabo ma ahan xaqdi iyo xasad waxa ay tahay oo keliya in laba aan bidhaamiyo waa mar koowaade walaalayaal waxaad ogaataan in dad fara badan oo annaga naga mid ah marka dadkeena dhalinyarteena oo jiilalkeennii waxaan u baahnay jaamacadihii dalalka carabta ayaan ka damacaynay inay jaamacadna siiyaan laakiin intayna soo qaadaan ayayna dhahayaan jaamacad baan siinay jaamacadda ayna siinayaanna ma ahayn jaamacad noocii aan u baahnayn ah amase wax jaamacadba loo galo ma ahayn oo tusaale maxay tahay wayna xaabiyeen waxayna geeyaan madiina waxayna baraan marka axaadiista waciidka ah iyo waxa la dhaho cilmu rijaal iyo waxyaalo kaloo yaryar qofka noogu tafsan ayaa waxaa la baray shariica alislaamiya laakiin kulligeen markaan soo barannay waa soo wada noqonnay guryahan soo fariisanay markaa kadib ayaan xirfad aan ku shaqaysana raadsanay kuwii marka xagga commission laga soo siiyey ee la yiri wax faafiya oo marka ayaga lacag lagu siiyo waxbaaba la siiyaa xalaal iyo xaaraan waxay u ahataba laakiin kuwii kaleeto derbiyaday taagan yihiin sidaas darteed waxaa kale intaa ka daran in nala ku sameeyey wax ah qalbiga ayaa qofka waxaa laga gelinayaa wax iigo la dhaho qofkii oo hoosta ka maran oon lahayn maskax furfuran oon lahayn garasho dheer oon lahayn wacyi aan koobaya wax walba ayaa waxaa loogu samaynayaa iigihiisa baa la shidayaa la dheereeyaa iigaha qofka marka la shido oo meel sare la gaarsiiyo waxaa la leeyahay marka PhD baad haysataa hadda PhD-day maxaad ku qaban maxaad ku tarin ilaan maba ahan PhD lagu shaqaysto ma ahan PhD meel lagu gaaro marka waxa weeyaan PhD-dii noocaas ahayd ayaa nala ku shidaa laakiin PhD-da ayaa sii kala daran mid aan waxna kuu kordhinayn waxna kuu dhibayn dhibba ma lahan laakiin midda dhibaato abuuraysa ayaa ka daran oo diinta islaamkana meel xun oo qalada ka sii tuuraysa dadka muslimiinta ana marin habaabinaysa taasi maxay ka tahay waa sida PhD-da noocan oo kaleta ah oo PhD xadiisyo booto ah lagu sameeyey bootadu marka waa laba nooc baan u kala dhigayaa waa booto xadiidka laftigiisa ayaa booto sheegaya xadiidku waciid waa bootayn xadiid qof ninka sheegayana wuu ugu bootaynayaa dadka oo maalkooda iyo maskaxdooda ayuu ku marsanayaa markaasuu leeyahay wuu ku bootaynayaa xadiidkaas haddana wuxuu isugu malaynayaa nin khatar ah oo cirka intaa weyni la eg isaga oo wax beena laga buuxiyey maskaxdiisa
marka sidaas darteed ayaa xadiidkaas waciidka ah ee PhD lagu qaatay baa wuxuu yahay marin habaabin aan ku ekayn ninka keliya laakiin ummadda galaafanaysa ummadda maranaysa oo maxay tahay ummaddu in ay gartaan jaamacad waxaa loo galaa oo weliba PhD waxaa loo qaataa in aad cilmi soo kordhiso in aad wax weyn soo dharaandhiriso waxaa loo qaataa tusaale anigu marka PhD-daydii dambe aan qaadanayay waxaan ku qaatay cilmiga badaha ayaan bartay markaan cilmiga badda bartay oon ku sameeyeyna waxaan soo kordhiyey cilmiyo fara badan oo la dhaho academic contribution waxa la dhahaa inaan samaysid weeye waxaan ku soo kordhiyey oo ugu weyna xataa in aan dhulka arda meesha aan ku noolnahay earth inaan la dhihin English ee la dhaho Gaia Mother Gaia ama Great Mother la yiraahdo waayo waxa aan ka nahay dhulka adduunka waxaan macnaa koonka meeshaan ku jirno waxaan ka nahay dhulku waxa uu ka yahay dhulka bannaan ama carrada ah waxa uu ka yahay boqolkiiba wax ka yar 25 inta kalena waa biyo haddaba cadaalad ma ahan annagoo boqolkiiba 25 ah inaan magacii oo guud qaadano waxa taas awgeed ayaan ku guuleystay oo ku dooday waxa ka mid ah ilaa 16 qodob baan ku guuleystay oo academic contribution la dhaho laakiin ninka soo bartay waxa la yiraahdo cilm ahadith alwaciid maxay yihiin waxa weeye hebel waa murtada dil hebel waa xagga dil waa sidaan marka sidaas darteed ayaadna ula yaabayneen Sheekh Shible marka uu yiraahdo waxa aan soo arkay isagoo si kibriya sida u dhahaya in aan waxaan Ingiriiska ku soo arkay London kaliya ayaan waxaan ku soo arkay 700 oo gabdhood oo u dhaxayso da'doodu 13 ilaa 17 17 jir ilaa 17 jir oo AIDS meel ugu xaraysan oo Soomaali ah oo markaas arinta iyada aniga iyo rag badan oo wariyaal oo culimo leh oo waxgarad laba ka hadlay laakiin yaa maqlaya marka waa taas waa mid marka uu sida leeyahay hala yaabin waayo wixii uu ku jiray baaba noocaas ah marka uu dhahayo masjidkaygan hadda aan fadhiyo leeyahay masjidkaas dhexdiisa waxa jooga ilaa 200 oo qof oo maalintii duhurta ku soo hadlayo waayo waxay ka leexinayaan dadka jidkiisii inta aanan ugu ayaan daran wax aan la arkin ba isaga u muuqday walaalayaal waxa ii muuqda waxa ay tahay in aan arkayo sida ummadda muslimiinta ah sida kuwa Soomaalida loo marin habaabinayo oo markaasna loogu dhacayo magaca islaamka oo magaca diinta iyo sheekhnimo loogu haruusanayo iyada oo looga faa'iideysanayo diin jacaylka iyo wanaagga ay u hayaan alla caabudka laakiin marka ayaga iyo allahooda la soo kala dhaxgalayo aan haddaba idin sheego nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma waxa uu ahaa mid ay ka suurtoodo goodin hanjabaad bootayn waabsi mid ay ka suurtoodo oo waciidka sidaas la dhaho uu ka suurtoodo miyuu ahaa ma ahayn nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam mid ay taasi ka suurtoodo balse waxa uu ahaa mid faafinayay akhlaaq wanaag mid faafinayay samaha mid sheegayay wacdiga oo dadka uu digayay oo Allah awoodalay waxa uu quraankiisa ku leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim fadhakkir inma anta mudhakkirun lasta calayhim bimusaydirin hadaba ilaahay waxa uu xusuusi oo u sheeg dadka waayo adigu waxa tahay mid dadka xusuusinaya oo u sheegaya oo kaliya laakiin ma tihid midka saydareynaya oo qabsanaya ma tihid adigu marka taas waxa iska leh Allah subhanahu wa ta'ala fadhakkir in nafa'ati dhikra ayu Allah uu leeyahay marka waxa uu Allah subhanahu wa ta'ala leeyahay nabi maxamed alayhi salatu wasalaam wama alayka illa albalagh adiga korkaaga ma saarna gaarsiin mooye wax kale ma saarna ina intaas gaarsiisid weeye hadaba sidee uu gaarsiinayay ma waxa uu gaarsiinayay in uu waciid waabsi handadaad iyo hanjabaad ku sameeyo dadka oo waabsado oo marka uu handadaadda ku sameynayo ma isaga ayaa jannada sameeyay aakhira jannada iyo cadaabta ma nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa iskale mise Allah ayaa iskale Allah ayaa la nabigu jannada ma lahan laakiin dadka ayuu waxa uu sheegayaa sidii ay jannada ku heli lahaayeen naartana ay uga fakan lahaayeen maxaa inoo daliila waxa inoo daliila dhammaan nabiyadii hore oo dhanba sidaas ay ahaayeen warkoodu in ay gaarsiiyaan kaliya ahayd oo ilaah waxa uu leeyahay masalan nabi ciise calayhi salaam asagoo oo ka sii hadlaya ayuu waxa uu yiri in tu'adhibhum fa innahum
عبادك إن الله إلهيو تذكني وحاسي سميان وحي سميان با هدي عذابته هذا وعدو مضادي وإن تغفر لهم هدي قدم بدافتنا فإنك أنت العزيز الحكيم أيو إله لي أوليه النبي سيدو إله إنو شيغي والنبي عيسى سيدو إله قرآن سنو شيغي مركز سيداس وناك كلية أي النبي ياشو كشيكينيين لكن ما أهين كوا بوتو إيهان شباب وضا ما أهين sidoo kaleeto waxa haba marka ay wax sheegayaan sideebay wax u sheegi jireen waxay u sheegi jireen sida Allah awoodda leh oo quraankiisa nagu barayo oo maxay tahay in ilaa markood waxa uu leeyahay wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan ma aysanna xumaha iyo simaho laakiin adigu hadaba soo bixi oo soo hormari oo soo gudbi midda wanaagsan ugu wanaagsan si marka ilaa waxa uu leeyahay mar walbaba marka lagu xumeeyo way adigu wanaaji laakiin ha handadin dadka ha waabinin ha u bootaynin ha u hanjabin sidaas weeyaan macnaheedu oo ilaa wuxuu leeyahay marka dadka diinta loo sheegayo waxa uu leeyahay ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasanati ugu yar dadka dariiqa Allah ugu yar dariiqa rabbigaaga ugu yar si xikmad ah iyo mawcida xasana ah wacdi wanaagsan ugu sheeg laakiin wacdi oo wacid iyo good iyo hanjabaad ah ma ahan marka wacdigaas wanaagsan weeyaan in uu u sheego oo sidaas wanaagga ugu sheego weeyo waayo rasuulka kaleey salaatu wasalaam waxa uu leeyahay markasta ilaahay wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin ma nan ku soo dirin wax kale waxaan ku soo dirnay oo kaliya in aad tahay naxariis aadamaha oo dhan caalamka waxa ku nool oo dhan loo firdhiyay naxariistaas tahay oo ilaahay waa ka quraanka iskoola suurada tawba laqad ja'akum رسول من أنفسكم عزيز عليه حريص عليكم ما عنتم مركا إلهي وحوليه رؤوف آيات دمات كذا إلهي وحوليه بالمؤمنين رؤوف رحيم ومتكاس مؤمنين تا متكن حريص بدن الرؤوف رحيم كأ ويان أو مركز النبيات الشعور مركو إلى صدر يا وحو كو أتكيني إن أي قول كودو قول لين هذا وإله إليه اذهب إلى فرعون إنه ضغى فقولا له قولا لينا أتقى فرعون وحد قد بيه أو مركز أو حد كساكري أو واحد كتر هذا قول تلعسن أو ير أو فضود كشاقة مركز إله مركز أوليه حتى ذاتك حن للدوديو أو ذاتك نفك بدن للدوديو وات الله إليه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن هكل الدودنا dadka reer kitaablayda ah in sida ugu wanaagsan mooyaane si wanaag ah oo sama ah oo fududeyd ah baad kaliya ugu sheegi kartaan oo ilaahay leeyahay laakiin si waciid ah oo hanjabaad ah oo goodi ah ma ahan sida aad ugu sheegaysaan oo ilaahay marka waxaas oo dhan sida u leeyahay yaa waxa ay tahay diinta islaamka oo ku dhisan bashiirun wa nadiirun in ay taaqo in loo bishaareeyo dadka nadiirun loo digo ma ahan in loo hanjabo nadiirun waxa weeyaan in dhibaatada la dareensiiyo ay leedahay ficil xumadooda waxa ka ratimaya ay tahay marka intaas oo dhan bal eeg aayad aan mar walba khudba jimcaadiyada aan ku gabagabayno ee ilaahay uu ku leeyahay inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkaruna waxa uu ilaahay leeyahay waxa allah waxa uu amrayaa cadaaladda أحسن سمينت عدالة سمينت أحسن سمينت ودتك قرابة وح لسيو وح ونربيا وح فاشجع وح منكرك وح قرط الرئيسك يعيدكم مركا إلى إن كوانين يا لعلكم تذكرون وأنت صو هذا حكرتان مركا سياس درتي وحوي مر والبابا وح يتعي وعد جاس سدا نظيف كا أو مضن أو دجن أو حسلان أيو كسم يسنجحي دينت إسلام كنا أي كسر ليسنتاي لكن سيدا رجع تجار الدين أو دين تكجن عصرا سيدا أي أسمع يان وحاي تاي إن أي تدك أي كهن تدان إن مركي لا يان أي سكوي نسيان رتو قون ستايان لين عسور لجان إسقلوا عيان كفور كتايان تدك أي الله لين مركي أي مال لو مرتقى أي كونك سيستايان سي وفتي سوق البيوه لان سي وحيالنا عاص أي سمعيان مركي سيدا استرتيد شيخ شبله حتى هدو آمسين ياي أحاديث توعيد كإنا يتران isaga ayaa horta ka baqi lahaa oo dhaqankiisa waxa laga fahmi lahaa khushuuc iyo cabsi khawf iyo waxa laga fahmi lahaa kibir la'aan waayo kibirka
iyo waciidkuba allah ayay u sugnaadeen laakiin sidaa darteed dhibaatadu waxay tahay in isagii la marin habaabiyey isna uu dad kale sii marin habaabinayo sidaas ayaa dhibaatada keenaysa taasna waxa kaliya oo looga bixi karaa in la sameeyo in aan diinta laga dhiganin mid lagu bariiseeyo oo cunto lagu raadsado waa inuu qofku xirfad uu ku shaqaystana leeyahay hamiga iyo faanfaanka iyo waxaasna uu ka deeqtoomo oo ka sarreeyo oo marka uu intaas wax uu siduu ku samaynayo waxa ay tahay maxaan sameeyaa oo idinkuu sheegaa anaa tusaale iskaga soo kin qaadaya aniga bal adinku haddaad cadaalad samaynaysaan aniga iyo isaga isla kaayo barbar dhiga waxa haddaad u malaynaysaan macnaha tusaale inuu yahay aan isaga PhD-diisa aan ka masayrayo aan ka xumahay sidaas haddaad dareemaysaan bal waxaad eegtaan anigu PhD hortiis ayaan laba u qaatay mid ma ahane laba ayaan u qaatay oo markaas bal fiiri PhD-daas ayaan ka qaatay aan qaatay hadda ka hor oo ah ciwaankeeduna uu sidaas yahay buuggeedu kaas yahay waxa uu yahay socio-legal aspects on environmental law land degradation and its control in Somalia waa buuggaas ayaan ka qoray waxa weeyaan buuggu waxa uu yahay marka land degradation and its control in Somalia oo haddaan macnihiisa iska soo koobo af Soomaali ahaan aan dhihi karo sida loo badbaadiyo loona barwaaqeeyo beriga Soomaaliyeed ayaan markaa PhD-daas taas ku qaatay taasi waa PhD-daas xagga dhig waxa ku soo haray markaa PhD kale ayaan iyadana halkaas kaga qaatay oo ah waxay tahay waad arkaysaan waa York University Qasim Xirsi Faarax Doctorate of Philosophy ayay tahay ciwaankeeduna waxa uu yahay tan weeye waxa uu yahay the stability sustainability dynamics in the case of marine environmental management in Somalia marka ay sidaas tahay waxaan tanna ku qaatay badda Soomaaliyeed sidii looga badbaadin lahaa bilic xumi basaasid burbur iyo barwaaqadeeda oo si xun loo isticmaalo isla markaana ammaan iyo nabad looga dhigi lahaa ayaan amaatay PhD-daasna ku qaatay taas xagga iska dhig waa 2 PhD marka aan ka soo tago taas marka master degree waa tan iyadana waxa ay tahay University of Malaya and degree of Master of Law waa LLM waxa la dhaho master oo ah sharciyada environmentka waxa bii'ada sharcigeeda weeyaan waxa la yiraahdo tanna waxa ay tahay waa master ay qofkina akhrinaya International Islamic University of Malaysia weeyaan waa jaamacada islaamiga caalamiga Malaysia waxa aan ku qaatay markaas masterkaas comparative law isbarbardhigga shareecada islaamka iyo sharciyada gaalada waan ku qaatay waa 2 PhD iyo 2 master baan tusay tanna maxay tahay waa bachelor aad arkaysaan aan ku qaatay shariica islaamiga waa shareecada islaamka ayaan ku qaatay waxa kale oo jira tobaneeyo diploma oo kale oo meelahaas daadsan laakiin wax weyn ba kama soo qaado qofku waxa aan intaas marka sababta aan tusay waxay tahay marka aan bachelorteeda koowaad sameynayay shariica islaamiga ahayd laakiin si aan shariica islaamiga inaan ku shaqo tagayo uma samaynin oo aan baris ku raadinayo waxaan baran jiray bachelor kaleeto oo ahayd aan ka baran jiray waxa la dhaho management iyo communication ayaan baranayay markaan taas gooni u baranayay oo iyo statistics iyo wax la mid ah ku dhax jirto taas gooni u baranayay bachelortaydaas bachelor kale aan ku dhax watay masterkaygaas master kale ayaan ku garab watay oo environmental law masterka shariica islaamiga markaan qaadanayayna master oo waxaan ku dhax waday oo ah environmental law marka aan taas aan ka sii tagayna PhD-deyda oo environmental law iyadana ah and policy marka aan sameynayay waxa aan ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda bii'ada ee Soomaaliya oo dhan ayaan ahaa oo halkaas ayaan waxaan ka ahaa madax sare oo wasaaradda oo dhan ninka oo maamulkeeda haya ayaan ahaa marka laga reebo wasiirka siyaasaddiisa mooyaane dhinaca kale PhD-deyda kaleeto ee badda Soomaaliya aan ku sameynayay markaan sameynayay waxaan ku sameynayay waxaan ku garab waday macallinimo jaamacadda aan macallin ka ahay iyo
imaam masjid inaan ahay imaamkayga masjidnimada aan ku ahay markaas iguma kalifin in aan iska dhigo nin diinta bariis ku raadiya laakiin imaamka masjidnimadu waxay ahayd iskaa wax u qabso macalinimada jaamacaddana ayaan bariiskayga ka raadinayay PhD-dana waxa ay ahayd in aan barto meesha Soomaaliya ay ka dayacan tahay oo badda Soomaaliyeed ahayd si aan wax uga ogaado oo uga barto walaalayaal waxa aan marka halkaas taa u soo qaaday waa ogaay dadku inay nacab yihiin inuu qof is sheegay waxa aan u soo sheegayaa si aanay dadku ugu malaynin Allah uu ka masiirsan yahay waanan ogaay in badan oo ka mid ah aysanba intaan dambe dhageysan doonin markay bilowga arkaan ay oranayaan wuu ka masayray marka arrintaasna waxaan leeyahay ku dhaqma aayadda aan ku furfurtay xadiis waciid iyo waabsi iyo bootayn ahna yuusan meel jar ah idinka toorin laakiin ogaada naarta Allah ayaa iska leh ninku doonana ninka uu goodiyana qofku rabo qofku rabana geliya qofku rabana ka badbaadiya laakiin nin islaameed kuguma bootayn karo naar baa gelaysaa iyo xaggaad ka baxaysaa haddaba waxba yaanan ku sii dheeraynina waa inoo kulan dambe iyo aniga oo Allah ka baryaya in aan mar dambe igu kalifinin in aan qof ka hadlo wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.